kulan ay maanta xaruntooda Golaha Shacabka ay ku yeelan lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa baaqday kaas oo ajandihiisu ahaa ka doodista mooshinka hor yaala xildhibaanada ee laga keenay Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari Gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee Golaha Shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo sida qorshuhu ahaa inuu maanta shir gudoomiyo isagu kulankii maanta ayaa xildhibaanada ku wargeliyay in Gudoomiye Jawaari uu soo gaarsiiyay warqad uu ku sheegayo inuu iska casilay xilkii Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya xildhibaanadii maanta xaadiray kulankii maanta oo badankood u badnaa xildhibaanada mooshinka ka wada Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa warbaahinta u sheegay in lagu wargeliyay in Gudoomiye Jawaari uu is casilay isla markaana waxay sheegeen in iyagu ay ku faraxsan yihiin arrintaasi qaar kamid ah xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay waxa kamid ahaa hadaladoodii saaki waxa jiray kalfadhigii baarlamaanka kalfadhigii saddexaad kulankiisii saddexaad ayada oo warqadii xaadirinta la saxiixayo oo ay socoto isdiiwaangelintii qaabkii lagu geli jiray nidaamkii baarlamaanka uu socdo xildhibaano kor u dhaafay ilaa 150 xildhibaan ay markaas soo xaadirtay saacadana ay ku beegneed 1 saac iyo 2 saac oo 5 daqiiqo dhiman ayaa waxa soo galay siihayaha xilka gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey wuxuu xildhibaanada ka codsaday in muxuu ahaay ay maqlaan oo ay dhageystaan waxa qabaarkaas u haayo oo uu subaxan saaki ah muxuu ahaay ka soo baxay xafiiskii gudoonkii dacwada ee ka taaliya wuxuu inoo sheegay warqad ayuu jeeb kala soo baxay warqadii ayuu akhriyay warqadii waxa ku qoraa in gudoomiyihii dacwada ay ka taalay oo xilka ka dagay oo muxuu ahaay is casilay sida awgeedna kulanka maanta loo balansiyo oo hal ajanda ahaa ajandahaas oo ahaa ka doodista iyo akhrinta mooshinkii muxuu ahaa 14 bishii Maars laga keenay gudoonkii baarlamaanka ee hadda xilka ka dagay hadda waxii oo dhan waa iska soo afjarnay xildhibaanada waa midoobayeen waana midaysan yihiin kala agduunaashadii waa meesha way ka baxday aad baan ugu farxaynaa qof kasta oo mas'uul ah oo muxuu ahay wax fahmayeen uu soo dhaweynaya Gudoomiye Jawaarina waan uga mahadcelinayaa waan ku faraxsanahay go'aanka uu gaaray maanta inuu maaragtay uu ka odayeeyay aragtidii kala duwaneed inuu ka odayeeyay wax badan buu soo shaqeeyay inuu maaragtay maanta uu u arko hadiiba lagu murmay inuu dhinac ka fariisto oo ummadda Soomaaliyeed iyo xildhibaanadii iyo dadkii uu u sahlo waana uga mahadcelinaynaa waana ka odayeeyay odageennuna ahaana mar walba Soomaali guul iyo khayr baan u rajaynaynaa insha Allah gudoomiye khayr qaba wanaagsan Allah noo soo sahlo inoo wada duceeyo gudoomiyaheenii hore Jawaarina waxaan u sheegaynaa aad baad u mahadsan tahay oday weyn baa tahay muddo soo shaqaysay waan kaaga mahadcelinaynaa xildhibaan garabkeen ee baa tahay gudoomiyaheenii hore tahay guul iyo khayr baan ku rajaynaynaa nabad baan ku leenahay saaki groupkii tagay halkaas baan ahayn saaka dadka magaalada Muqdisho badankood waxa ay soo tooseen iyadoo ay xiran yihiin dhammaan wadooyinka soo gala baarlamaanka iyo xarunta madaxtooyada gaar ahaan wadooyinka Maka al-Mukarrama iyo sidoo kale wadada wadnaha ciidamada ammaanka oo isugu jira police nabad sugid iyo military ayaana la dhigay dhammaan wadooyinka hase ahaatee markii ay soo baxday hadalka inuu is casilay gudoomiyihii Golaha Shacabka ayaa dib loo furay wadooyinka iyadoona uu caadi ku soo laabtay